بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhaweey tibsanka ibn Cabdullaahi weli waxaa kusii wadnaa muuqaalada dhiirgelinta ee 2025 sidaa ogtahay sanadkan cusub ee 2025 waa fursad kale oo dahabi ah oo aad ku noqon karto qof saameyn leh oo bulshadiisa iyo naftiisa wax weyn ka bedela. maanta waxaan ka hadli doonaa sida aad dadka uga dhex muuqan karto oo wax aad uga tiri karto una noqon karto qof ay bulshada ku daydo. waxaa muhiim ah inaan barano sida loo dhiso saameyn waarta oo wanaagsan. marka hore, saameynta dhabta ah ma ahan inaad lacag badan leedahay ama aad xoog leedahay. saameynta dhabta waa in dadku ay kugu xusuustaan wanaagaaga oo aad raad fiican kaga tagto nolosha dadka kale. Alle subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraat. wajacalnaahum anaga waxaan ka dhignay a'immatan imaamyo ayaan ka dhignay yahduuna kuwaasoo dadka ku hanuuniya biamrina amarkeena wa awxaynaa waxaana u waxyoonay ilayhim xaggooda ficla alkhayraat ficilada wan wanaagsan ama falalka wan wanaagsan. macnaha aayaddan waa in saameynta fiican ay ku timaado ficilo wanaagsan, hanuun iyo hagitaanba. waxaan xasuustaa sanad ka hor markii aan go'aansaday inaan noloshayda bedelo. waxa igu dhacday isbeddel weyn markii aan bartay in camalka wanaagsan iyo akhlaaqda fiicanba ay yihiin furaha guusha. waxaan bilaabay inaan la wadaago asxaabtayda waanada diinta. waxaan ogaaday in erey keliya qofka bedeli karo, naftiisana u horseedi karo horumar weyn. sheekadani waxay bartay inay muhiim tahay inaad bilowdo isbeddelka adigoo ku dhiiran talada wanaagsan. intaad muuqaalkan daawanaysid, maskaxdaada ku sawir qofka aad rabto inaad noqoto sanadka 2025. kadibna qalin warqad u qaado oo qor yoolka koowaad ee ugu muhiimsan ee aad rabto inaad sanadkan gaarto. tusaale, haddii aad rabto inaad cilmi baratid, qor mowduuca aad rabto inaad ku takhasusto. haddii aad rabto inaad bulshada wax u qabato, qor sida aad rabto inaad wax ku bilowdo. hawshan yar ayaa kuu noqonaysa tallaabadii ugu horreysay ee safarka guusha. waxaa jira dad badan oo sameeya taariikh weyn iyadoo ay ku dhisan tahay ficil keliya oo wanaagsan. tusaale ahaan, waxaa la sheegay in imaam al-Bukhari umalena oo ku bilaabay inuu caawiyo asxaabtiisa si uu gaaro saameyn weyn ee dunida islaamka. dadka saameynta leh waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay camalka wanaagsan iyo ku dayashada nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaa kale oo jira sheeko qof doonaya inuu wax barto isagoo aan haysan hanti badan, balse ay niyad furnaantiisa iyo dadaalkiisa ka dhigeen qof saameyn weyn ku leh bulshada. marka qof walba wuxuu leeyahay fursad uu uga dhigo noloshiisa mid ka wanaagsan sidii hore. ha ka baqin inaad bilowdo isbeddelkaaga maanta, waayo isbeddelka yar ayaa horseedi kara guul weyn. waxaan rajaynayaa in sanadkan cusub uu ku noqdo mid aad ku guulaysato dhammaan yoolalkaaga. haddii aad muuqaalkan ka hesho, fadlan la sii wadaag asxaabtaada oo bulshada ku dhiirgeli inay noloshooda beddelaan. saameynta wanaagsan ma aha wax aad helayso hal habeen gudaheed. waa wax u baahan dadaal joogto ah, akhlaaq wanaagsan iyo niyad daacad ah. sanadka cusub waa fursad kale oo aad ku dhisan karto mustaqbal wanaagsan oo dadku kugu xusuustaan. ilaahay naga dhig kuwii raad fiican kaga tegay adduunka oo dadkuna ku daydaan. insha allah waana mahadsantihiin sida quruxda badan ay dhegaysteen. muuqaalka xaqiisana la siiyo. mahadsanidin.